الله ku xifdiyey magacaaga oo dhammaystiran inoo sheeg bal. maasha allah, magacaygu waa maxamed sheekh cabdiraxmaan axmed rooble, kunyadeedana waa maxamed sunni. meeshaa ku dhalatay meeshaa tacliinta ka soo qaadatay halkee baa sheekh maxamed? waxaa tacliinteyda ku soo qaatay magaalada muqdisho, kuna dhashay kuna barbaaray isla magaalada muqdisho. mustaqbalka dhow iyo midka dheer waxaan rajaynayaa in mid noqdo ducada Soomaaliyeed ee ka shaqeynaysa diinta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala, ummadana khayrka iyo wanaagga u soo gudbiyo khaalisiinta biin Ilaahay al-Kariim. xaajasha bulshadana kala qayb qaadatay Sheekh Maxamed oo hamigaaga iyo hobbigaaga qalbigaada ku jira inaad u sheegtid aad jeclaan lahayd. ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan weydiisanayaa walaaskii dhibaatada iyo muslimiinta haysta inuu ka qaado insha allahu ta'ala. nuurka iftiinka islaamkana ilaahay subxaanahu wa ta'ala nooga dhigay mid adduun iyo aakhiro kuwa ku badbaado, oo nabigooda sallallahu alayhi wasallam calayhi siiradiisii sururadiisii iyo noloshiisa oo dhan dhammaanteed noloshiina ugu dhammaystirnaato. wallahi kama dhib badna ee waxay rabtaa oo keliya qofka inuu bartaa alkitaab wa sunna. marba hadduu labada gacanta midig ku qabsado adduun iyo aakhiro dhan wuu liibaana. sheekh maxamed in badan culimada Soomaaliyeed nagama yara culimo badan baa joogto ka shaqaysa diinta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala. adigu waxaa nin dhalinyaro ah oo ku soo biiray saaxadda ducada maxad markaad culimadaas waaweyn aad ugu duwan tihiin culimadiina yararka? walaal sidaa sheegtay ma ahan jamaacada muslimiinta ama walaalaha muslimiinta dhammaantood ninka kale wuxuu yahay bunyaanu marsuus yashuddu bacduhu bacda qaarkiis qaar kale yoodkeeya. ma ahan arrin la isku cariirinayo ama jagal la iska barsanayo. dadka ducada aad bay isku jecel yihiin, meel walba dunida joogaan way iskaga duceeyaan, kooda weyn iyo kooda yar, laakiin waxay ka wada siman yihiin dhammaantood in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisa u khidmeeyaan. sidaa sheegtay waa sax, laakiin waxaan aragnay nimanka heer adduunya ama fanaaniinta ah kuwooda waaweyn kuwa yararka ayay ka cabtaan. haddana Soomaalida waxay dhaqan u taqaanaa culimadii hore unbay aad u ictimaadaan oo dhahaan dadkii hore. marka culimadii yararka waxaan nooga eeday inaad ka mid tihiin kuwa fadfad iyo rabsho iyo arrimo kala keeno. waxaa marka bulshada ku soo kordhinaysaan ugana dardaarmaysaa kelmadii ugu dambeysay sheekh tafadal. wax loo sheego waxuma jiraan. dadka hera adduunya way isku dhegdhegi karaan, laakiin dadka hera aakhiro waxay u badan yihiin tawaaduc iyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala. muslimiinta dhammaantood waxaan dardaarmayaa Allah ka cabsi, siiba Soomaalida dhibkii iyo rabshadii ay soo mareen inay ku waantoogaan oo kuwa noqdaan isku duuban oo diintooda iyo kitaabkooda kor u qaadaan adduun iyo aakhiro kaas ay ku zoowayaan dulligana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nooga